بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. waxaan maanta aan soo keenay dad warbaahinta tiin aan halkan idinku sheegno ama idinku aqrino wareegto ka soo baxday xukuumadda Soomaaliya oo la xiriirda wasiirka warbixinta deegaanada lixda ee galbeedka wareegtadaas waxay oranaysaa in lixda goobo aanay meel la raacin ee kaliya ay ka qayb qaadanayaan doorashada madaxtooyada ama madaxweynaha lagu dooranayo qodobkaas haddii aan faahfaahiyo waxa weeye goobaha codbixinta dadka codbixiyayaasha ah ee codka ka bixi ee iska diiwaan geliya kama waxaa loo isticmaalayaa oo keliya doorashada madaxtooyada codkooda ee codkooda kuma bixinayaan ama loo aqbali maayo ta deegaanada iyo ta doorashada golaha wakiilada qodobka labaad qodobka labaad inaan laga geli doonin doorashada golayaasha baarlamaanka iyo deegaanada ilaa inta go-aan cad laga gaarayo halka ay raaci doonaan waxaa lala sugayaa ilaa masiirkooda go-aan laga gaadho oo xadkooda la caddeeyo lagama geli doono doorashada golaha wakiilada iyo deegaanada degmooyinka waxaan caddaynayaa in aanay diiwaangelintu codbixiyo wax saameyn ah ku yeelan doonin go-aanka gaadhista lixda goobood iyo kala xadayntooda dadka cod iska diiwaangeliya goobahaas iminka xilligan la joogo wax saameyn ah kuma yeelan doonaan go-aanka gaadhista lixda goobood iyo kala xadayntooda ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa lagu wargelinayaa inay ilaaliyaan nabadgelyada isla markaana ka gutaan waajibaadkooda qaran muddada ay diiwaangelinta codbixintu ka socoto lixda goobood haddaba waxaa la idin farayaa inaad hirgelisaan diiwaangelinta iyo dhigista sanaaduuqda lixda goobood ee kala ah hulka ceel sheekh cabdi geedi ceel la xiray bildaanley iyo damasha intaas ayaan ay wareegtada ku kooban tahay wixii su-aalaha la xiriirana diyaar baan nahay inaan ka jawaabo Wait.